Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibada ku xiran janaalka Layaabka Media ee YouTube, kusoo dhawaada asxaabta muuqaalkeena. Maanta waxaan kusoo qaadan doonaa dad dil lagu xukumay iyo cuntooyinka ay dalbadeen Part 2 ayaa muuqaalkeena maanta kusoo qaadan doonaa. Inta aan u galin barnaamijka, waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto si uu dad badan u gaaro. Ninkan ayaa loo yaqaanaa mid ka mid ah bini'aadamka ugu naxariista darnaa ee abid soo mara dhulka dushiisa. Timothy McVeigh wuxuu ahaa Maraykan, kaasi oo ka dambeeyay weerar aad u xun oo ka dhacay magaalada Oklahoma. Dhowr qarax oo galaaftay nolosha 168 qof ugu yaraan iyo 680 kalena ku dhaawacmeen. Timothy ayaa la soo mariyay nidaamka maxkamadda, waxaana lagu helay dambi. Maxkamadda ayaa ku xukuntay dil toogasho ah, waxaana lagu dilay cirbad sun ah isagoo jira da'da 33 sano jir. Sababtu waxa ay ahayd in loo maxkamadeeyay oo lagu helay dhammaan 168 dacwadood oo ah inta qof uu qaraxa ku dilay. Haddaba ninkan ayaa la weydiiyey oo lagu dhahay, maxaad codsanaysaa dhanka raashinka? Wuxuuna dalbaday jalaato ice cream kaliya. Ninkan ayaa lagu magacaabaa Ted Bundy. Waa dambiile nolosha dhaafsiiyey ugu yaraan 35 qof, una dilay si aad u foolxun. Ted ayaa sii watay dambiyadiisa, wuxuuna ka mid noqday dambiilayaashii ugu caansanaa ee soo mara taariikhda dalka Maraykanka. Ted ayaa ugu dambeyn waxaa lagu xukumay da'da 43, laguna xukumay in lagu dilo kursi koronto. Ted ayaa dalbaday dhanka cunnada ukun, rooti, hilib, caano iyo cabitaan. Stephen Woodis wuxuu ahaa kiiskiisa maxkamadda mid cajiib ah. Stephen ayaa loo xiray inuu dilay nin dhalinyaro ah oo ka ganacsan jiray daawooyinka iyo xaaskiisaba. Ugu dambeyntii ayaa lagu helay dambiga, waxaana lagu xukumay dil, waxaana lagu dilay cirbad sun ah. Stephen ayaa la weydiiyey oo lagu dhahay, maxaad codsanaysaa dhanka raashinka? Wuxuuna dalbaday hilib doofaar, pizza, digaag shiilan, cabitaanka Mountain Dew, Pepsi, jalaato ice cream, 5 digaag oo la shiilay, hamburger iyo baradho shiilan. Ronnie Lee Gardner ayaa la xiray oo lagu xukumay 1985 kadib markii uu dilay qof kale. Ronnie ayaa u mooday inuu xabsiga ku sii jiri doono 25 sano, balse Ronnie ayaa lagu helay dambigii uu galay, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah. Ronnie ayaa ka codsaday maxkamadda in lagu dilo xabad. Ronnie ayaa la weydiiyey oo lagu dhahay, maxaad codsanaysaa dhanka raashinka? Wuxuuna dalbaday hilib shiilan, malaay, jalaato ice cream. Ronnie ayaa sidoo kale dalbaday inta uuna adduunka ka tagin inuu daawado filimka The Lord of the Rings. Muuqaalka maanta intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Haddii aad ka heshay muuqaalka, ha ilaawin inaad like saarto. Haddii aad ka heshid mowduucyadan oo kale, qaybta commentiga nagula wadaag. Muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.